maanta waxaan yahay sheeko ay adag tahay in dad badan ay rumaystaan laakiin xaqiiqdii run ah. Nin ayaa $86 oo kaliya u bedelay 2 milyan oo dollar. $86 ayuu akoonkiisa kriptada kusoo shubtay kadibna 2 milyan oo dollar lacag ku dhow ayuu u bedelay. Waa sheekada dunida oo dhan haysata. Waan ogaa dhammaantiinba agtiina suurtagal kama aha, laakiin aniga ayaa ina fahansiin doona sida arrintan ay ku suurta gashay. haddii qofku kuu sheegi lahaa inuu $86 kaliya u bedelay 2 milyan oo dollar lacag ku dhow muddo gaaban gudahood, ama 2 milyan oo dhiman 400,000 oo dollar oo kali ah, malaha waxaad u qaadan lahayd sheeko ama qiyaali film laga sameeyey. laakiin dunida kriptada, suuqa kriptada ma kala joogo, wax kasta ayaa ka suurtagala. mararka qaarkood waxyaabo aan la rumaysan karin ayaa kaasoo horbaxaya oo run ah oo xaqiiq ah, oo anigaba qaarkood aan indhahayga ku arkay. ninkan traderka ah ayaan ka hadlayno, maalin ayuu $86 oo kali ah oo bishii lasoo dhaaftay wuxuu kusoo shubtay akoonkiisa. hadda waa $86 wax ka yar $100. waxaa laga yaabaa inuu qofku kasoo daynsadaba. lacagtaas ayuu ku iibsaday koonka la yidhaha cashcard. cashcard markii uu geliyey $86 waxa uu helay 17 milyan oo xabo oo ah cashcard, maadaama koonku 0.00000 oo aad oo hoos u hooseeyey xilligaas.